kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Bomas Media wararka aan maanta idinkugu hayno waxaa ka mid noqon doona Soomaaliya iyo Masar oo heshiis cusub ku kala saxiixday Qaahira Al-Shabaab oo lagala wareegay deegaano cusub oo ka tirsan Jubbaland Rajab Tayyip Erdogan oo shaaciyay go'aan ciqaab ku ah Sweden kadib falkii lagu gubay kitaabka Quraanka Kariimka haatan wasaaradda isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda dalka Soomaaliya iyo Masar ayaa waxay caasimadda dalkaasi ee Qaahira ku kala saxiixdeen heshiis isfaham ay ku gaareen heshiiskan ayaa waxaa qalinka ku dugay wasiirka isgaarsiinta iyo teknoolajiyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya حسن خليف يديجيس مصر دكتور عمر الدلقاد وزراها مصر مصطفى المقبولي يا جوبجو كأها صحيح هشيس كيسفهان كجارين لبض الدل كاسيو كوكو arrimaha iskaashiga culumta tiknoolajiyadda isgaarsiinta iyo boostada ee labada wadan heshiiskan ayaa ku soo beegmay iyadoo wasiirka tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo qayb ka galay shirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee dalalka Carabeed oo ka qabsoomay magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar dowladda Soomaaliya iyo Masar ayaa si weyn isugu soo dhaweeyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday Qaahira halkaasi oo wada hadallo kula yeeshay dhigiisa Abdul Fattah al-Azizi wasiiraha Soomaaliya Xamza Cabdi Bare iyo koox wasiir ah oo dhawaan safar ku tagay magaalada Qaahira ayaa sidoo kale halkaasi ku soo saxiixay heshiis ay Soomaaliya la gashay Masar heshiisyadaasi waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Abshir Umar iyo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Farax Sheekh Cabdulqaadir iyo wasiirka warfaafinta Daawud Aweys Jaamac dowladda Masar ayaa waxay sanado badan saaxiib la ahayd Soomaaliya laakiin waxay ku jirtay dowladihii ay xiriirka u jartay dowladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaamiyaha u ahaa balse dowladda uu haatan hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqato mid Masar ku soo celinaysa booskeedii saaxiibka dhow ee Soomaaliya haatan ciidamada Jubbaland oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka ayaa maalimahaanba waxay howlgallo ka wadeen deegaanada galbeedka Kismaayo iyagoo la wareegay deegaano ay horay uga talin jireen maleeshiyaadka shabaab howlgalkan oo ka bilowday deegaanka Janaac Cabdalla ayaa ciidamadu kula wareegeen deegaanada Kooya Yaaq Dabeel iyo Qudus halkaasi oo muddo badan ay gacanta ku hayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidamada Jubbaland ee howlgallada hogaaminaya ayaa sheegay inay weli sii socon doonaan howlgallada isla markaana qorshahoodu uu yahay in dhammaan deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland laga saaro Al-Shabaab dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo horay ugu dhawaaqay in si wadajir ah deegaanada Jubbaland looga bilaabi doono howlgallo ka dhan ah xarakada Al-Shabaab haatan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa shaaciyay in dalkiisa uu si weyn uga hor istaagay ku biirista isbahaysiga NATO oo codadka kaliya ugu dhiman haddii ay helaan in uu dalkaasi xubin ka noqon karo isbahaysigaas Erdogan ayaa si kulul u dhaleeceeyay tilaabada uu siyaasiga reer Sweden ee Erasmus Buldan uu ku gubay kitaabka Quraanka ah Sabtidii ayaa sidoo kale sheegay in Sweden aysan filaynin in dalkiisa uu taageero dalabkeedan oo ku aadan ka mid noqoshada isbahaysiga militariga NATO ayna maskaxda ka saarto riyada ay ku jirto wuxuu falkaas Sabtidii ku tilmaamay in ay tahay mid meel ka dhac ah gaar ahaan muslimiinta Turkiga ayaa si gaar ah uga cadhooday mas'uuliyiinta Sweden in ay ogolaadaan in banaanbaxaasi uu ka dhaco banaanka safaaradda Turkiga ee Stockholm iyadoo ay ilaalinayaan ciidamada ammaanka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters gubista kitaabka barakeysan ee Quraanka Kariimka ayaa ka cadhaysiyay guud ahaan shacabka dalka Turkiga xilli ay dalalka Sweden iyo Finland ay raadinayaan taageerida Turkiga si ay xubin uga noqdaan isbahaysiga NATO madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale dhileecay in Sweden ay ogolaatay mudaharaadyada kooxaha Kurdiyiinta gaar ahaan kooxda BPK oo dagaal kula jirto dalka Turkiga ururka BPK waxaa liiska argagixisada ku daray Turkiga Mareykanka Midowga Yurub hase ahaatee astaamahooda weli lagama mamnuucin dalka Sweden sababta ugu weyn oo Erdogan u diiday in codkiisa uu si Sweden xilli dhowr jeer shuruudo kala duwan uu hordhigay ayuu ku sheegay in wadankaasi uu raaligelin ka noqday in la gubo kitaabka Quraanka Kariimka martigelinta wuxuu ugu yeeray argagixisada iyo islaam naceebka si kastaba madaxweynaha Turkiga ayaa si cad ugu sheegay Sweden in aysan xubin ka noqon doonin isbahaysiga NATO muddo dheer dhabab walba u soo maray balse socodkoodii ku gooyay tilaabooyinka foolxun oo ay qaadeen ayuu yiri Rajab Tayyip Erdogan